kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wacyi oo idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis. waxaynu ku faraxsanahay in sheekheena Sheekh Maxamed Cabdi Shucayb barnaamijka uu marti inoogu yahay aynuna maanta ku eegayno arrimo badan oo maalmahan Soomaalidu ay hadal hayeen kuwaas oo ay isbarbardhig badan ku suubinayeen faa'iidadooda iyo khasaaradeeda. barnaamijka aan ka hadlayo waa Soomaaliya bishii November ku beeridda ay ku biirtay ururka bulshada Afrika ee loo yaqaano East African Community. haddaba barnaamijkaas maxay Soomaalidu ka faa'iideysaa, maxaa caqabado ku noqon karo, xilligan ay ku biirtay xilli sax ma yahay, iyo su'aalo kuwaas la halmaalo oo badan ayay dadku aad isu weydiinayeen. ayagaas ayaynu ku soo qaada dhigaynaa barnaamijkan ama aynu ku falanqeynaynaa biidnillah. Sheekh Shucayb soo dhow. waa dhawahay Sheekh Maxamed, waa maasanta. shukran. ugu horeyntii su'aalaha badan dadku ay aad isu weydiinayaan waxaa kamid ah maxay tahay taariikhda ururka bulshada Afrika meeqa xubnood ayay ka kooban tahay horta? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد. ومحسنت الشيخ محمود مرلبات adiga iyo bahda saxaafada injineer Mahad iyo injineer Guuleed iyo ummadda Soomaaliyeedba meel bay naga dhageysanayaan. dalada bulshada East Africa ama ururka bulshada bariga Afrika waa dalad ay ka koobmaan 7 dawladood أو 6 dawladood bay ahaayeen. Soomaaliya hadda lagu soo daray saatiri waxay soo asaasantay markii ugu horeysay 1967 oo waxa ka qayb galay markaas oo asaasay 3 dawladood waa Kenya iyo Uganda iyo Tanzania. Kenya markaa xorriyadda qaadatay 63 iyo Uganda xorriyadda qaadatay 62 iyo Tanzania iyo Zanzibar oo isku darsamay 64. marka 67 bay sameysteen heshiiskan 3 dawladood waxayna ahaayeen 3 dawladood oo runtii ugu dhaqdhaqaaqa badnaa dhinaca East Africa. waxaalooyin waxaa jiray ay ku kala duwanaayeen iyo waxaala ay wadaageen. tusaale ahaan Kenya iyo Tanzania oo kale baday leeyihiin xeebaha ugu waaweyn Afrika baa mara dekadana way leeyihiin. ayaga marka supply gareeya Konga iyo Uganda iyo dawladaha kale oo aanan lahayn dekada lahayn. Uganda oo kalena waxay leedahay sadka ugu weyn oo biyo xireenka ah koronto soo saarta ayadana koronto waxay siisaa dawladahan. markii ugu horeysay ururka wuxuu socday ilaa 77 10 sano dib uu burburay. heshiiskaas waa lagu kala baxay. sababaha ay ku macneeyaan dadka dhaqaaliyahanka ah waxay yiraahdaan sababaha keenay inuu burburo dalada marka ku adeey burburto waxaa kamid ahaa dawladahan 3 ah oo xagga horumarka ku kala hormaray. Kenya oo kale aad u horumartay, labadan dawladood oo kale dib dhac baa xoogaa ku jiray. marka waxaa soo kala dhexgalay tuhun in yaani ururka dad gooni ah ay ka faa'iideystaan dawlado gooni ah aysan ka faa'iideysanin. waxaa kaloo kamid ahaa waxaalihii burburiyay in Tanzania iyo Uganda khilaaf xuduudeed uu soo dhaxmaray oo isdagaaleen oo dhulal ay kala qabsadeen waxay ahayd cilad kale. ciladda saddexaad oo la sheegana waxay ahayd dawladdan Kenya iyo Uganda oo waxay isticmaalaan nidaamka loo yaqaano ra'sumaaliga ama hanti goosadka ama free marketka waxa loo yaqaano. meesha Tanzania ay ahayd nidaamkeedu hanti wadaag ama ishtiraaki ay ahayd. marka systemkaasna waa uu isdiiday. khilaafaadka noocaas waxay keeneen in ururkii uu ku burburo 77 meeshaas. mar labaad bay ay heshiiyeen 3 dawladood 2000 markii la soo gaaray. heshiiskii iyo daladii bay dib u soo nooleysiyeen. waxayna sameysteen ahdaaf iyo yoolal iyo aragtiyo ka baahsan tii hore. dhinaca ganacsiga ma aragtay iskaashi dhinaca dhaqaalo, dhinaca amniga, dhinaca garsoorka iyo bulshada. shuruudana runtii way dejisteen. shuruudahaas waxaa kamid ahaa in dawladdan kamid noqonaysa dalada East Africa kamid noqonaysa ay degan tahay dhinaca Afrika bariga ama u dhowdahay yani waxa laga wadaa sida Congo oo kale. bariga Afrika kuma taalo laakiin u dhowdahay xuduud la leedahay. waxaa kamid ah shuruudaha in ururka uu aqbalo. waxaa kamid ah in international law waxa loo yaqaan UN ka iyo shuruucdiisa iyo ay aqbalaan. waxaa kamid ah suuqooda inuu yahay mid marketkooda oo free ah.
waxaa ka mid ah boolisiyadooda iyo siyaasaadkooda bulshada tan caafimaadka qusaysa tan waxbarashada qusaysa inay la socdaan boolisiyada caalamka ah adu waa 5 shuruudood oo macquul ah oo dawladihii kale ka qayb galeen kadib 2007 waxaa ku soo darsamay Rwanda iyo Burundi haddana 2013 waxaa ku soo darsamay South Sudan haddana 2022 waxaa ku soo darsamay Congo waxaa ugu dambeysay Soomaaliya oo la aqbalay 2023 bishii November laakiin anagu codsigii waxaan gudbisanay 2012 waana laga diiday oo waxay noo arkeen ururkan in aynan ahayn dawlad la mid noqon karta ama ka mid noqon karta daladan amni ahaan xageeda iyo institution ahaan haddana mar labaad baa codsigii waxaa lagu celiyay 2016 waana loo diiday mar labaad mar saddexaad waxaa ku celiyay madaxweyne xasan sheekh 2022 processkii hadda wuxuu ku soo dhamaaday in la aqbalay dawladda Soomaaliya inay xubin ka noqoto ururka loo yaqaan dalada bulshada bariga Afrika waxayna noqotay dawladii toddobaad marka waa Kenya iyo Tanzania Uganda iyo Congo Burundi iyo Rwanda iyo South Sudan iyo Soomaaliya gartay waxaad ka soo sheekaysay taariikh isjiid badan oo dhinaca awoodaha oo soo dhaxmaray iyo bilowgoodii marka la isbarbar dhigo iminka dhinaca awoodaha waliba ururka xubnaha dawladahan ka ah Soomaaliya halkii ka soo galaysaa bay kulata maxmud dhinaca awoodaha markaan fiirino badan awoodaha waxa laga fiiriyaa populationka waxa laga fiiriyaa GDP-ga waxa laga fiiriyaa inflationka waxa laga fiiriyaa growthka sanadka maaragtay dawladaasu kobaceeda dhaqaalo sida uu yahay haddaan ku hormarno dhinaca populationka toddobadan dawladood waxay isku yihiin 320 milyan oo qof meelahaas waxay ka mid yihiin ururada ugu badan xagga populationka waana fursad ay leeyihiin dawladahaas waxa ugu badan marka xagga tirada markii la fiiriyo Congo oo ah 95 milyan Tanzania 67 milyan Kenya 55 milyan Uganda 47 milyan Rwanda oo 14 milyan Soomaaliya waa 18 milyan waxa ugu yar South Sudan oo ah 12 milyan Burundi oo ah 13 milyan marka xagga tirada markii la yiraahdo waxaan nahay dawladda shanaad oo kaleeto beenu nahay xagga GDP-ga marka fiirisid wax soo saarka waxa ugu dhaqaale badan xagga wax soo saarka waa Kenya oo waxay ku jirtaa top 10ka dawladaha Afrika ay ka mid tahay sanadkan hadda 2023 waxay soo saartay 113 bilyan oo dollar waxa ku xiga Tanzania 75 bilyan oo dollar Congo 58 bilyan oo dollar Uganda 45 bilyan oo dollar Soomaaliya waa 8 bilyan oo dollar waxa ugu yar Rwanda iyo Burundi iyo South Sudan marka xagga wax soo saarkana waxaanu nahay dawladda shanaad laba dawladood naga sii hooseeya hadaa fiirisid xagga bafartiga iyo faqriga waxa ugu badan xagga faqriga waa South Sudan oo boqolkiiba waxaan dhihi lahaa Burundi oo boqolkiiba 87 waa faqri shacabkeedu South Sudan boqolkiiba 76 waa faqri shacabkeedu Soomaaliya waa dawlad saddexaad marka xagga baahida oo boqolkiiba 69 dawladda Soomaaliya waxa la yiraahdaa waa faqri macna faqriga markii la fiirinayo waa sanadka dawladdu waxay soo saarayso iyo populationkooda la isku qaybiyay marka qofkiiba dakhliga soo galayo baa laga fiirinayaa marka waa dawlado oo xagga baahida dhinacaas oo kale ah hadaa fiirisid xagga maaragtay unemployment-ga shaqo la'aanta maxaa la yiraahdaa waxa aad ugu badan marka la yiraahdo South Sudan boqolkiiba 13 baa shacabkeedu unemployment-ga ah xagga inflationka waxa ugu badan South Sudan ayadana 17 baa sicir bararkoodu maraya meesha Burundi ay tahay 16 Soomaaliya ay tahay boqolkiiba 6 nambarada noocan oo kale ah World Bank-ga waa lambarada ugu dambeeyay uu soo qoray oo page-kiisa ay ku dhagan yihiin marka tira ahaan waana laga tira badan yahay oo dawladda shanaad baanu nahay dhaqaale ahaanna dawladda shanaad baan ku nahay xagga faqrigana dawladda saddexaad baanu ka nahay awood ahaan marka dhinaca hoosana lagu tiriyaa Kenya iyo Tanzania iyo Uganda baa xagga awoodaha ugu badan xagga kheyraadka hadaa fiirisid Soomaaliya waxay ku jirtaa top 3 resource-ga gaaska
dahabka macdanta maxaa la yidhaahdaa kalluumaysiga beeraha dhinaca markii la fiiriyo waa Kenya iyo Uganda Soomaaliya iyo Congo marka xagga awoodaheenu aad baan dhinacaas uga fiicanna laakiin awoodda Soomaaliya ee la xisaabinayo ee resource-ka waa wax iska dihinay maaha wax la soo saaray ama la isticmaalo wax soo baxay maaha waa wax dihina gartay dhinaca kalan eegaynaaye heshiiskooda markii la eego dowladahan toddobada ah heshiiskooda maxaa tiirar u ah se go'aamada yaa gaaro 2000 markay heshiiyeen Sheekh Maxamed waxay ku heshiiyeen 7 qodob inay iska kaashadaan koob wuxuu ahaa marxaladda koobaad inay samaystaan canshuur mida waxaa laga wadaa in 7dan dowladood waxyaalaha ay soo saaraan markay dowlad kale ay ka qaadanayso canshuur inaan la saarin taasu marka waxay ka macno tahay inay samaysteen custom union oo Soomaaliya kale waxay soo saartaa sisinta markay u dhoofinayso Kenya waxay ugu dhoofinaysaa canshuur la'aan Kenya waxay soo saartaa baradhada markay u dhoofinayso Soomaaliya waxay ugu soo saaraysaa canshuur la'aan qaabkaas oo kale marxaladda labaad waxay tahay in ayagana ay maaragtay canshuurta ka heshiiyaan dowladaha kale ayaga ka baxsanna canshuur midaysan ay ka qaadaan Soomaaliya kale waxay la shaqaysataa Turkiga kaba soo qaad ama waxaan ka la ganacsanaa Brazil waxaan ka soo qaadanaa sokorta markaan sokorta Brazil ka soo qaadanayna canshuur badan buu na saaraa hadday marka sokorta soo saarto Kenya oo kale maxaa la yiraahdaa Kenya ka qaadanaynaa tan Brazilna isku canshuur midaysan baan ka wada qaadanaynaa marka dowladda Brazil markay 7 dowladood sokor u dirayso canshuur midaysan bay ka wada qaadanaysaa annaga markaan u dirayna Turkiga maxaa la yiraahdaa ganacsi canshuur midaysan baan u diraynaa waa marxaladda labaad midaas marxaladda saddexaad waxa weeye suuq canshuur midaysan maxaa ka wadaa ma wixii laga qaaday dowladuhu qaybsanaya maya yani dowlad walba wax soo saarkeeda markay dowlad kaleeto ay wax ka gadanayso canshuur bay saaraysaa Soomaaliya tacriif wax la yiraahdo 7dan dowladood hal tacriif bay wax wada saarayaan markaan ka soo qaadanayno Brazil oo kale sokorta waxaan saaraynaa tacriif laakiin kaligeed ma go'aansanayne 7 dowladood baa isla wada go'aansanaynaa hal canshuur oo midaysan aan ka wada qaadaynaa dowladaha kale naga baxsan wixii Brazil laga keenayo ama midalan dal kale laga keenayana waa inay noqdo wax aysan hayn dalalkan lala midoobay aysan haynin hadday hayaanna ayaga bila canshuur ku keenayaba haddaysan hayninna kuwa kale taan ka soo qaadanayna laakiin canshuur midaysan baa looga qaadanaya marxaladda saddexaad waxa weeye suuq free ah inay samaystaan taas waxay ka macno tahay marka in dadku fiisaha loo furo dhinac socdaalka loo furo fiisaha loo furo work permit aan la weydiinin qofka uu ganacsigiisa meeshuu rabo ka furan karo shirkadaha waaweyn inay adeegoodu ka bixin karaan 7 dowladood marka dadka hadda Kenyaanka hadday soo duulayaan Muqdisho soo imaanayaan ma galayaan line-ka dadka foreign-ka oo fiisaha looga baahan waxay galayaan dadka oo East Africanka oo kala ama muwaadiniinta East Africanka baasaboor bay samaysteen oo ay leeyihiin baasaboorkaas lagu soo galaya waa bila viiso shuruuc shaqo laga ma rabo xagga shaqaaleynta iyo shaqada iyo ganacsiga intaba waxay u yihiin free sidii qof muwaadin oo kale ah Kenya marka ka digataba way leeyihiin East African Community line loogu talagalay line-kaas marka waa bila viiso marka xagga shaqooyinka waa u free waa bila viiso waa work permit-ku waa free shaqada iyo shaqaaleyntu waa free shirkadu waxay ka furan kartaa faracyo Muqdisho Boosaaso Hargeyso ma la weydiinayo shuruucyo kale oo ajaanibta loogu talagalay qaybtaas waa mid saddexdaas marxaladood way gaareen ururkan bulshada East Africa leeyahay hadda halkaas ay marayaan marxaladda afraad waxa weeye lacag midaysan inay samaystaan waxa laga wadaa bangi dhexe inay wada samaystaan dowlad kastana ay ka tanaasusho bangigeeda dhexe shaqooyinku qabanayay bangiga dhexe la isku wada imaanaya bangi dhexe hadii la sameeyo waxa weeye lacagta waxa maamulaya bangiga dhexe lacagta waxa soo saaraya bangiga dhexe sicirka lacagaha lagu sarifayo dollarka waxa xadeynaya bangiga dhexe hadii la rabo in inflation iyo sicir barar lala dagaalamo siyaasadaha waxa dejinaya bangiga dhexe hadii aan employment-ga la rabo in wax laga qabto shuruucda waxa dejinaya bangiga dhexe marka madax banaanida dowladaha 7 ahayo dhinaca lacagta waxa la soo wareegaya bangiga dhexe oo dowladahaas u dhaxeeya marxaladda ugu dambayso shanaad waxa weeye siyaasad mid ah inay samaystaan
siyaasadda mida waxaa weeye in laga midoobo baarlamaanka in lagu midoobo maxaa la yidhahdaa dastuurka in lagu midoobo baasaboorka in lagu midoobo calanka siyaasadaha arrimaha dibadda militariga dhinacaas in laga wada midoobo oo sida midowga yurubka oo kaleeta ah marka kaasu waa marxaladda ugu dambayso oo shanaad weeye hadda waxay weli ku jiraan broseskii howlahaas ahaa waxaa la filaya inuu kaasu aad u dabdhici doono maadaama caqabado badan ay hortaagan yihiin midda ah dhinaca maamulka iyo go-aan gaarista waa 3 heer bay leeyihiin heerka madaxweynayaasha 7 madaxweyne heerka wasiiro iyo heerka garsoorka marka 3daas heerar baa waxay go'aaminayaan boolisiyada iyo shuruucda dhinaca ganacsiga hadday noqon lahayd canshuuraadka dhinaca maxaa la yiraahdaa horumarinta lacagaha hadday noqon lahayd dhinaca difaaca iyo dhinaca arrimaha bulshadaba dhinaca kale marka la eego Soomaaliya maxay ka faa'iidi kartaa ayaa la isweydiin karaa maxaa fursad ah oo ay ka heli kartaa ku beerista مثلا ururkan ururka lagu beero fursado badan buu leeyahay waxaa ka mid ah fursadahaas kow dadka ka mid ah xubnaha ka mid ah ururkaanu population ahaan aad bay u badan yihiin waa 300 iyo dheeraad milyan oo qof labo kobaca dhaqaalo 7 dawladood waxaa lagu tiriyaa dawladaha adduunka ugu waaweyn xagga kobaca dhaqaalaha waxa weeye sanad kasta intay korayaan marka dawlado koraya 6% 7% ilaa 10% koraya weeye marka koritaankooda iyo kobacooda aad buu u sareeyaa 3 fursado waxay leeyihiin xirfadleyda ku badan waa dad shaqeeya oo aydi caamiladooda aad bay u sareysaa fursadaha kale ee leedahay fursado ganacsi buu leeyahay fursado ganacsiga waxa weeye Soomaaliya يعني canshuuraadkii badnaa oo laga qaadi jiray wax ka yar bay waxay ku helaysaa ama ayadoo free waxay ka helaysaa dawladaha daris kala ah haday noqon lahayd qamandiga haduu noqon lahaa burka haduu noqon lahaa sokorta يعني adeegyo badan ay ka heli lahayd dawladaha naga fogfog bay waxay ka helaysaa Kenya iyo Uganda iyo Tanzania oo bilaa oo free camala ama canshuurtii laga qaaday fursadaha kale ka helaysaa waxa weeye insurance waxa weeye caymis haddii مثلا dhibaato weyn wadanka ku dhacdo oo kale 7 dawladood baa ku heelan مثلا hadda dawladda Soomaaliya waxay la dagaalamaysaa argagixisada oo kale al-shabaab ay la dagaalamaysaa ururkan oo kale wuxuu ka caawinayaa 7 dawladoodba inay meel uga soo jeestaan مثلا waxaa ku yimid Soomaaliya abaaro ama waxaa ku yimid daadad iyo biyo badan baa ku yimid ama musiibo ku habsatay 7 dawladood way ku qaaraamayaan caalamka marka intuu hal dawlad intii hadli lahayd 7 dawladood inay ku qaaraamaan baa ka weyn ku ololayaan 5 waxa laga faa'iidaa gorgortan ganacsi hadda markii aan adduunka ka qancinaynay din cafiska oo kale kaliya baa watay laakiin 7 dawladood iyo ururka marka xubin ka tahay way ku gorgortamayaan ganacsiyo waaweyn baa caalamka uga gorgortami kartaa waxa ka helaysaa maalgashi ama waxa laga heli karaa oo kale in mar labaad Soomaaliya lagu sameeyo development arrimahaas oo dhan runtii waa fursado ay dawladda Soomaaliya ay ka heli karto waxa kale oo ka mid ah fursadaha dhinaca waxbarasho inay dadka Soomaalida aadi karaan 7 dawladood ku ganacsan karaan Kenya iyo Tanzania iyo Uganda iyo Congo iyo fiisa ayagoo aan u baahnayn xagga deegaanka dadka Soomaalida waa dad reer guura ah oo aad u guura marka meeshii hadda ay ku dhibaatoobi lahaayeen Kenya iyo Tanzania iyo Uganda ayagoo oo muwaadiniin ay degi karaan meesha taana waa fursad kale oo dahabiya qaybtan aad tiri ayaga oo muwaadiniin ay degi karaan Kenya marka aad joogto siiba magaalada Nairobi aad joogto waxa dadka Soomaalida ah ee aan sharciga ku lahayn wadanka la weydiiyaa sharci ama kitaan bulusho ama ID ama kibandhi marka taas may ka badbaadayaan dadka Soomaalida ah ee ku dhibaataysan ee askarta Kenya ee lacag ka qaadan jireen ama xabsiga u taxaabi jireen ka badbaadayaan xabsina ma aadayaan bilaa fiisa ku noolaan karaan way degi karaan way ka ganacsan karaan beeray ka gadan karaan guriga ka dhisan karaan waxbay ka baran karaan taasoo kale waa faa'iido weyn oo bulshada Soomaalida u soo hooyatay weeyaan laakiin wali soo lama rabo in ay keenan cadayn inay ka mid yihiin East African Community-ga waa marxaladda hadda ay ku jirto dawladda Soomaaliya oo ah maadaama hadda waa la ogolaaday marxaladda labaad waxa weeye isqabadsiinta shuruucda ururka u yaala iyo dawladda Soomaaliya taa marka waqti bay iska qaadanaysaa waqtiga markay qaadato oo baasaboorka la siiyo kadib baa ogolaanshuhu la gaari doonaa san filan dhinaca marka waan fahanay faa'iidooyinka balse dhinaca kale haddaan eegno Soomaaliya maxay ku dagmi kartaa dhinaca marka laga eego
caqabadaha oo noqon kara wax hadhow la dhaho aan leeyahay arrintaas lagama fiirsan ama maxaa caqabado ku noqon karo caqabadahana runtii way badan yihiin waxaa ka mid ah caqabadaha guud oo ururkan uu leeyahay faqriga ku badan waa caqabad guud oo waxay ku jiraan 7 dowladaha caalamka ugu markii laga saaro Kenya iyo Tanzania iyo Congo caqabad waxay ugu noqonaysaa dawlad faqri guud ahaanba maxay kugu soo ziyaadin kartaa مثلا haddii Japan iyo Jarmal oo kala urur ay ku jiraan aad gali lahayd way ka duwan tahay markaan Burundi iyo Rwanda iyo South Sudan oo kale aad la gashay marka faqriga guud ahaan walays kale uu kugu sii noqon karaa caqabada labaad oo haysata waa inflation sicir bararkana waxay kala mid yihiin dawladaha waaweyn oo sida Malaysia iyo Turkiga oo kale iyo dawladaha waaweyn oo u babacdhigi kara bay inflation ahaana ay la mid yihiin caqabada saddexaad oo weyn waxa weeye madax banaanida qaybo badan bay ka tanaasuleysaa madax banaanida waliba xagga lacagta taabacadeeda iyo in la xadido sicirkeeda iyo in la xadido canshuuraadka iyo bangiga dhaxaba waa ka tanaasuleysaa waa nooc kamid ah madax banaanidaada taasoo marka waxay caqabad ku noqonaysaa marka aad rabtid in wadankan aad iska celisid dawladaha waxlaha lagu la dagaalamo waxa kamid ah inaad kor ugu qaadid maxaa la yiraahdaa canshuurta ama inaad lacagtaada hoos u dhigtido asaga ganacsigiisa uu down tago ama inaad tiraahdo ururka waa kaaga baxaya waa waxlaha dawladuhu ay ku tartamaan tusaale waxa uu ah Greek oo kale iyo Portugal iyo Spain midowga Yurub bay kamid yihiin dhaqaale xumo badanna way soo waajahday Greek marka wuxuu dhibaato si khaas uga haysatay dhinaca Jarmalka waa la soconay waxay leeyihiin shirkadaha adduunka ugu horumarsan xirfadleyda iyo injineerada adduunka ugu horumarsan wax walba ay soo saaraan raqiis bay ku soo saarayaan Greek marka ay ka soo qaadanayso maxaa la yiraahdaa Jarmalka alaabta ka soo qaadanayso wuxuu ugu imaanayaa canshuur la'aan wixii marka uu Greek soo saaray lama tartami karaan wax soo saarkii Jarmalka haddii marka lacagta uu hoos u dhigi lahaa uma dhigi karo oo midowga Yurub kula jira hadduu canshuurta kor ugu qaadi lahaa uma qaadi karo midowga Yurub kula jira hadduu yiraahdo iga baxana kama bixi karo oo dawladda Jarmal waa dawlad weyn marka dawladda Jarmal waxay ku qasbanaatay inay magdhow sanad walba siiso Greek lacag dheeraad oo shaxaad camal ah magdhow ah bay siisaa markuu uu ku dhaco inflation badan ama hoos u dhacana dhaqaale fiican bay bangigeeda ku shubtaa laana suuqaas Jarmal ku fiirsanayaan in ganacsigoodu uu ka faa'iideysto marka waa madax banaanida nooc kamid ah baa lagu weynayaa markii ururka la galay xagga bangigaaga iyo lacagtaada iyo siyaasadaaga iyo canshuuraadkaaga iyo xuduudaada iyo waa madax banaanida nooc kamid ah oo aad weyday kamid ah waxaas dhan runtii waa caqabada ugu muhiimsan oo Soomaaliya si gooni ugu dhacs waxa weeye anagu waxa u dirno oo badan ma jiraan dawladahan waxaan noqonaynaa consumer dawlad mar walba wax loo soo diro oo suuqa Kenya iyo Tanzania iyo Uganda baan ugu tartami doona macaamiil baan noqonaynaa wax soo saarkooda beeraha haday noqoto ayagaan ka qaadanaynaa sokorta iyo burka ayagaan ka qaadanaynaa wax walba wax soo saarka ah haday noqoto waxbarashadii haday noqoto caafimaadkii kulli suuqaasa aan wax kala soo diray waxaan noqonaynaa dadka consumer macallimiintii waxa ugu daran waa macallimiinta iyo iskuulaadka caafimaadka maxaa la yiraahdaa shaqaalaha hoose oo ka shaqeeya isbitaalada iyo maqaaxida iyo ka shaqeeya beeraleyda intaba laakiin marka horeba ay soo heshiiskaas aanay jirin magaalada Muqdisho haddii aad tagto dadka ka shaqeeya hoteelada waa Kenyan in badan oo kamid ah shaqooyin badan oo Soomaalida aanay qaban karin marka la fiiriyo dhinaca managementiga iyo dhinacyo kale ee Soomaaliya kamid ah marka aragtidna macallimiinta laftirkooda waxa laga soo dhoofsan jiray oo la keensan jiray wadamka Kenya maadaama curriculumkooda iyo luqadda Ingiriiska iyo waxyaabo noocaas ah oo aad sarreeyo nooga fiican yahay marka macaqabada taas mid waa faa'iido dhinacna waa faa'iido oo service-ka mujtamacu helayaan caqabadna waxay u noqonaysaa businessleyda iyo tabaqada dhexe oo ganacsatada ah oo Soomaalida ah kuwaas marka wax soo saarkoodii uu yaraanaya qofkii Soomaaliga ahaa markii horeba xirfadleydu ay ku yaraatay dhalinyarada Soomaalida waxay u badan yihiin dad labista oo dibadda laga soo biilo ay u badan yihiin kuwa yaroo kamid ah percentage yaroo kamid ah shaqeeya kuwaasna waxaa looga tagay xirfadii iyo u jajabnaantii shaqada iyo inuu shaqo walba u geli karo skillskii shaqada iyo ethicskii shaqada Soomaalidu way ku yartahay markuwaas shaqaysanayay waxay ku biirayaan kuwa labistay sii noqonayaan marka caqabadii hore noo haysay sii laba jibaaraysaa unemployment-gana kor bay u qaadaysaa dadkii kale oo xirfadleyda oo caafimaadka ka shaqaysan lahaa iyo shaqadoodii baa yaraanaysa marka dhinac markii laga fiiriyo waa caqabad
dhinac markii laga fiiriyana waa fursad labada waa ku noqon kartaa dhinaca kale marka laga eego Soomaaliya maadaama ay ku biirtay ururkan Kenya oo xuduud aan leenahay uu ku jiro Kenya waxa nooga dhaxeeyay muran badan oo dhinaca badda iyo dhinaca dhulkaba ah xuduudaha marka la eegayo Soomaaliya marka arintaas xuduudii ay u hanqal taagaysay wadamadeedii iyo dhulkeedii iyo baddeedii waxa inay soo ceshato may ka tanaasushay haday heshiis la gasho dadkii isku furmay maya bal anu waxa aaminsanahay inay fududeynayso in la heshiiyo oo badanaaba nisaacaadka iyo khilaafaadka dawladaha u dhaxeeya haday noqdaan khilaafaad xuduud iyo haday noqdaan mid bad iyo khilaafaad siyaasadeed iyo mid amniba badanaa waxa lagu xallin karaa markii midow noocan ay ku wada jiraan garsoorka wataan ku sheegayo xagga garsoorka kale ka midoobayaan dawladaha kale oo shanta oo idin dhaxayaan waxay idin noqon karaan markhaati oo kale Tanzania iyo Uganda iyo Congo iyo Rwanda iyo Burundi waxay qayb ka noqonayaan inay idin heshiisiyaan khilaafaadka jira ay fududeeyaan labada dawladna ay cadaalad ay u noqdaan uusan heer xabad la isku qaato inuusan gaarin ay ka shaqeynayaan Kenya dan weyn baa ugu jirta inay Soomaaliya soo dhawaysato waxay kala soo dhawaysanaysaa marka khilaafkan badda hadda u dhaxeeya iyo inay Soomaaliya gacanta u gasho Ethiopia waxay maalmahan wadwaday inay sameeyso dallad noocan oo kale ah oo la yiraahdo ururka geeska Afrika ay soo hoosgalaan Djibouti iyo Eritrea iyo Soomaaliya marka Kenya uga hormartay oo runtii hadda labadii sano ugu dambeysay ka shaqeynaysay in Soomaaliya qayb ay ka noqoto si khilaafaadkeeda xuduudda na loo yareeyo tambadana loo yareeyo Ethiopia aysan gacanta laakiin Ethiopia doonisteeda badda ma ahayn heshiis iyo gorgortan iyo tartiib midna way sheegtay waxay dhaheen badda waxaan ku qaadanaynaa xoog markii xoog iyo military yimaadana Kenya ma soo gasho halkaas Kenya waa dawlad degan aamusan ilbaxsan dagaalna shuqulba aan ku lahayn xoog wixii imaado inay iska dhiibtaa u dhaanto maxay ku tari kartaa marka dawladda noocaas heshiiskeeda dawlad xoog wax ku qaadanaysa markay imaato xoog ku qaadanaysa ama ururka kula jir ama kula jirin ayadu xoog bay ku qaadanaysaa midaan oo kale laakiin waa waxa dagaalkeedu waa dagaal diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed iyo influence oo kale weey laba dawladood aad u kala duwan weey marka Kenya oo kale waxaan isleeyahay wuu ka yaryahay khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia oo kale aad buu uga yaryahay dhaawac badan iyo dagaal badan sida Ethiopia soo martay oo kale ma ahan haddaan ku daro laba qodob oo caqabadaha kamid ah muhiim ah qodobka shanaad waxa weeye dawladahan todobada ah caqabad waxa ka wada dhaxaysa institutiono daciif ay wada leeyihiin dawladnimadoodu ma adka waa dawlado xagga muassasaadkooda weak uu wada yahay Soomaaliya markay ku sii darsantana way la sii tabar yaraanaysaa cilada kale oo ka sii darana waxa weeye infrastructure-ka dawladahan oo dhanna waa weak siiba xagga ganacsiga highway-yada haday noqdaan dekadaha haday noqdaan laboorada haday noqdaan tareemadii haday noqdaan ganacsigii wixii kala qaadi lahaay oo dhan iyo infrastructure-kii bay waxay ka yihiin daciif ka yihiin taana waxaan ku soo xasuustay qodobka hadda aad tiri oo Ethiopia iyo badda ah Ethiopia waa hore Soomaaliya badda xoog uga qaadan lahayd Sheekh Maxamed waxa la uga qaadan karin waxa kamid ah infrastructure-ka dartiis inay waxaan soo dhoofsato diyaarad ay soo saarto baa waxay uga raqiisan tahay dekada مثلا barbaro oo kale in loo keeno laana transportation-kii ma diyaarsana wadooyinkii ma diyaarsana infrastructure-kii baa aad daciif u ah marka haddii infrastructure-ka todobadan dawladda la dhiso ganacsiga uu horumari lahaa institutionadooda haddii la horumariyana ganacsigooda uu horumari lahaa oo faa'iido badan baa laga helaa laakiin hadda xaaladda ay ku jiraan caqabad bay ku tahay Ethiopia laftirkeeda hadday aragtay in Kenya dhinaca siyaasadda ay uga badinayso Soomaalida soo dhawaysanayso sidaas ay u dhaqmayso maxaa u diiday Ethiopia laftirkeeda inay tiraahdo ururka bulshada Afrika 8 baan ku soo noqonaya waxa u diiday ma lahan laakiin waxa hortaagan Kenya oo isku aragta East Africa inay ka tahay diiq ama ay ka tahay toora ka tahay labadooda tartan hoosana wuu ka dhaxeeyaa Addis Ababa hadda waxay noqotay maqarka ama meesha ay degan yihiin madaxtooyada maxaa la yiraahdaa baarlamaanka Afrika Kenya waxay noqotay meesha United Nations iyo UN-da iyo international hay'adaha ay degan yihiin marka Nairobi waxa lagu karkarayaa siyaasadda caalamka Addis Ababa siyaasadda Afrika baa lagu karkarayaa meesha Qaahira iyo Nigeria iyo South Africa ay yihiin kuwa la tartamaya marka East Africa Kenya ma rabto inay soo gasho dawlad uga tuktukuroon ugana dhaqaala badan ila Ethiopia hadda way naga dhaqaala badan tahay ayada waxay noqonaysaa dawladda lixaad meelahaas xagga way ka dhaqaala badan tahay
wayna ka population badan tahay wayna ka influence weyn tahay marka hadday soo dhexgeliso daladan waxay noqonaysaa dowladda labaad meeshaan hadda ayada atoora ka ah oo kabtanka ah marka way adag tahay inay Ethiopia meesha ku soo biirto mar haddii marka heshiiskii laga galay waaba lagu biirayba waa la galay caqabadahaas aad badan aad sheegtana waa ay jiraan Soomaaliya maxaa tala u ah maxaa la gudboon hadda dowladda Soomaaliya waxaan isleeyahay runtii urur aad u adag bay gashay waqti aysan waliba u diyaarsaneen mana aysan u diyaarsaneen xag population ahaan waana laga badan yahay xag haddii la diin ahaan ururkan waxaa iskugu yimid 85% Christian 12.9 muslimiin 2% iyo xoogaana diimo kale haystaan xag dhaqan way nagaga duwan yihiin xag luqad way nagaga duwan yihiin xag ganacsi waa nagaga duwan yihiin xag wax soo saarka way nagaga duwan yihiin marka dhinac walba waxaa noo dhaxeeya gaab annaga iyo dowladahan todobada ah hadda aan ku soo biirno 8 aan ku noqonay marka dowladda waxay u baahan tahay Soomaaliya kow inay isdiyaariso wacyigelin badanna mujtamaca Soomaalida laga siiyo siiba xagga bulshada diinta dhaqamada iyo culture-ka u dhaxeeya dowladahan lambar 2 dowladda Soomaaliya waa inay ku dadaashaa institutionadeeda inay kor u qaado siiba baarlamaanka iyo laanta garsoorka iyo amnigeeda inay aad u dhisto lambar 3 dowladda Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay xoogga saarto dhinaca xirfadaha ay jaamacaadkeena iyo boolisada ay ku shaqeeyaan wax laga bedelo jaamacaadkeena waxaa xoogga la saaraa dhinaca nadariga iyo caafimaadka iyo engineeringka xoogga la saaraa xirfadaha aad u baahan in looga shaqeeyo marka xirfadaha dhaqaale tusaale waxaan ka dhigayaa masalan dadka laamiyada sameeya kuwa musqulaha sameeya kuwa korontada sameeya beeraha kuwa beeraleyda ah farsamadaha iyo xirfadaha mihaniga ah xoogga in la saaro iskuulaad noocaas ah la dhiso waliba 1000 qof ilaa maaragtay 500 qof oo Tanzaniana ama Ugandese inta la keeno ay mujtamaca baraan xagga beeraha xagga korontada balaminka ku qaban lahaayeen dadha soo saaran hadii laga faanayo tan ugu daran waxa weeye in laga faano oo shaqadeena laga faano wax imaanaysa in mujtamaci iyo dowladdiiba ay noqoto meel ganacsi ah oo wax laga kalgato oo macaamiil inay noqdaan bay noqonaysaa wayna noqon doontaa haddii sida ay ku soo socotay ilaa 15 sano soo socda marka fursad waxaan haysanaa 15 sano in dowladda ay isku diyaarino xag waliba xirfado waliba dowladdu ay samaysato maxaa la yiraahdaa ajandayaal iyo istaraatiijiyad dhinaca xirfadda sidii loo soo saari lahaa waxay la qurux badan 85 90 mujtamac inay noqdaan xirfadley siiba kalluumaysiga beeraha korontada dhismooyinka arrimaha noocaas oo kale ah waxaa kaloo dowladda Soomaaliya u baahan tahay inay aad iskaga dhisto dhinaca militariga iyo xuduudaheeda amnigeena inay dhisto way u baahan tahay labada sano ugu horeeya dowladda waxaa la qabadsiinayaa shuruucda ururka 5 sano kadib waxaa laga yaabaa inuu la arko influence-ga uu leeyahay ururka oo dad badan oo Kenyaati iyo kuwa Tanzania Muqdisho yimaadaan kadib waxaa imaanaya inay kaniisado ay dhistaan waxaa imaanaya macaabidooda inay la yimaadaan dhaqankoodii inay la yimaadaan waxaa kaloo dhinac socda caafimaadka dad badan oo dhinacaas waxaa jira oo masalan cudurrada uu ku badan yahay malaariyada waxaa ku badan AIDS-ka waxaa ku badan xanuunada maadaama dad aysan ahayn iska ilaaliya xanuunada ku yimaada dhinaca galmoodka oo kale Soomaalida way kaga daran yihiin xanuunada noocaas wartaana loo soo waaridi karaa marka in wacyigelin dhinaca caafimaadka la keeno wacyigelin dhinaca diinta iyo wada noolaanshaha la keeno wacyigelin dhinaca xirfadda in la keeno marka cilada koowaad oo haysata Soomaaliya waxaan leeyahay ama qorshaha koowaad waa wacyigelin qorshaha labaadna waa xirfadda in la dhiso qorshaha saddexaadna infrastructure-ka wadanka in la dhiso qodobka ugu dambeeyana waxa weeye institutionada in laga dhiso la adkeeyo shanta qodob hadii la helo waxaan isleeyahay waa ka faa'iideysan karnaa maxaa la yiraahdaa ku biirida lagu biiray ururkan hadii kala caqabadihi aan soo sheegnaa qabsan doona bayaan research center oo madax u tahay sheekh wuxuu sameeyaa research iyo cilmi baaris sidoo kalena waxa xiriir badan la leh dhinaca culumada Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba marka dhinaca wacyigelinta aad ka hadashay hadda dowrka ay ka qaadan karaan culumada Soomaaliyeed ku biirista iyo u diyaar garowga arinta noocaas isdhexgalka bulshooyin badan oo kala duwan maxaa kula talin lahayd ugu dambeyntii waxaan kula talin lahaa
in dowladahan todobada aan ku biirnay annaga waxay noo tahay fursad xagga weliba islaamka oo ma arko dad badan waa arkaa weliba culimmada u badan oo ka baqaayo isdhahaya gaalnimaana loo soo waaridi doonaa waxbaana loo keeni doonaa anigu waxaan u arkaa cagsiga dad muslimiin aan nahay inaan islaamka qaybino baana laga rabaa weliba east africa gaarsiino islaamkana wuu degan yahay ilaa iyo Bombaaso markaa martid ilaa iyo Dar es Salaam Zanzibar islaamku wuu gaaray dhinacaas isdhexgalka marka aan isdhexgalno waxaan aaminsanahay in islaamka ku faafin doono bulshadahan 300 milyan laakiin waa in anagu capacity-geeda leenahay wacyigeedana leenahay culimadeena inay u diyaarsan yihiin Soomaalida marka waa dad muslimiin oo 100% islaam ah in laga bixiyana way adag tahay waxaana calaamad ku ah Soomaalida markay Kenya degtay Nairobi waliba ay degeen masaajidada ku yaala Nairobi iyo dadka maalba soo islaama iyo muslimiinta waxa isleedahay waxay ka xoog yihiin ba kaniisadaha iyo kristanka ka xoog badan yihiin ba isleedahay Uganda markaa tagtid muslimiinta degay hal qof oo soo gaaloobay ma arkaysid Mareykan bay muslimiin Soomaalida yimaadeen inay gaaloobaan iska dayaga dadka islaamka ugu yeera masaajida badan bay dhisaan marka qofka muslimka waa cunsur yani islaamnimadu ay ku weyn tahay dhaqankeenana way ka mid tahay waana isla dhalanay Soomaaliga iyo muslimka iyo luqadda Soomaaliga waa isku mid waxba ma ku kala duwana anaga marka waxba laga bedeli karo anaga marka wax bedeli karna waxa marka loo baahan yahay in culimadeena ay ku baraarugsan yihiin arrimaha noocaas oo kale taa ay ka doodaan ay munaaqashaad qabtaan wacyigelinna ay sameeyaan waliba waxaan aad uga talinayaa kuwa Kenya degan oo kale kuwa Uganda degan oo kaleeto kuwa degan maxaa la yiraahdaa Tanzania oo degan oo kale muslimiinta ah oo tajribo noocaas helay islaamka dhinaca ku qaybiyay inay wacyigelinta qayb ka noqdaan soo dhaweynna ay sameeyaan xagga anaga research ahaan oo kaleeto runtii diraasad fiican baan ka sameynay Soomaaliya maadaama ay ku biirtay fursadaha laga heli karo caqabadaha laga heli karo marka isku soo duuduubno waxa noo soo baxday in hadda fursadaha inoo badan yihiin laakiin istaraatiijiyada fog 20 sano gudaheed waxaan isla yahay waa caqabado isku bedeli doontaa haddaan loo diyaar garoobin laana Soomaaliya waxay haysataa fursado saddex koow waxa weeye Soomaaliya waxay leedahay kayd oo gaas ah gaaska la soo saaro waa fursad jirta wali lama soo saarin lambar 2 in dawladda ajnabi ay investment gareystaan Soomaaliya la maal gashto lambar 3 Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer East Africa in kalluumaysi iyo la furo saddexdoodaas way ka faa'iidi kartaa haddii lagu biiro dawladahan dawladdeena ay istaraatiijiyad ka leedahay marka anagu waxaan islahayn ka maxad ahaan fursadaha Soomaaliya ay leedahay iyo si uga faa'iideysan kartana qayb ka qaata caqabadaha jira iyo sida fursad loogu bedeli karana qayb ka qaata walidaalka waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan nadwooyin badan qabanno sanadka soo socdana hal doodo weyn oo eventiya oo form aan ka qabanno qadiyadaas si moor loogu sii iftiimiyo daraasaad badan aan ka soo saarno ugu dambeyntii say u caragelinaysaa ama ay caqabad ugu noqon kartaa dawlado caraba sida Emirateska مثلا قطر أو كله سعودي أو كله أو وحصو صار كصومالي إنه سن هرمر وين جارين عاد أوربا لقينا دريمي كرو صومالي أنا ربما مال يسير منه إسكايستان سيعيقة وحاض وطن أكتها إن عقبات كصوماليين أما أي سحن عنقبتين بدن أو صار إن عند كذا حتى أما infrastructure بدن حتى أي تأكشي كيني سيا إن ما كم سيري كران عربه سيدا إمارات كي سعودي كيو xiriirka aan la subsanay Afrikaankan dariska aad isleedahay markaad si fiican u fiiriso ayagaaba noo dhaamo ama mustaqbalka Soomaaliya toosin karo maadaama aysan ayagu xaasidnimada carabka ku jirto aysan ku jirin dadka qaar saas ay dhahaan maxay kula tahay what do you think isbarbardhigga carabaha iska ka haysta siyaasadeena iyo dhaqaalaheena saameyn badan ku leh iyo Afrikaankan le aan walaalowno oo aan waxayna soo wada saarano what do you think أنا وحاس لا هي صوماليا وحمر البوفي عن إني أفريكان كودة دولة ده ولي بدرس كلا إني علاقة في عن ليالته ورونة كجرة هذا صوماليا وكل إيجاد يو محاري هذا وروك أفريقيا أنت بحبني كيين تنادي إيست أفريقيا إني كم من نقطة وحيسيحوا جنسة حرير كإلا الله هذه الدولة ده أيضا درس كلا قضب كلابات ومهم كوحوية دولة ده هذا عن كشك إنه تضبط badankood waxa influence ku wada leh Sacuudiga iyo Qatar Kenya oo kala dan tusaale u soo qaato gaaskeeda iyo dhinaca energy-ga waxa gacanta ku haya Sacuudiga maxaa wadooyinkeeda iyo infrastructure-keeda waxa la dhisay Qatar
imaaraadka kale wuu isku dayay laakiin labada dowladood baa uga hormaray waxay kaloo cilaaqaad fiican la leeyihiin Kenya Mareykanka iyo Ingiriiska dhinac kalena waxay xiriir kale leeyihiin Hindiya iyo Brazil iyo dowlado kale awood leh ayagana soo baxaya oo soo kobcaya marka inaan dhinacan galno Soomaaliya waxay u tahay fursad iyo exit strategy iyo maxaa la yiraahdaa cunaqabateyn dhinaca carabta kaga yani laga ka haysatay meel uga bixi karaan way u noqonaysaa manfad oo kale weeye Soomaaliya dekedaheeda sidaa sheegtay waxa ku fadhiya imaaraadka inay dhaqaaqdana ma rabo in waxay rabtaa wuxuu rabaa ay barkin iska ahaato jabal Abu Cali oo kaleeto ay meesha u fadhido marka haddii dowladahan aan galno way shaqaynayaan maxaa la yiraahdaa dekedaha noocaas oo kale ah laana waxa ku xiran dalada ku jira Rwanda iyo Burundi iyo South Sudan iyo Congo aan dekeda lahayn oo malaayiin intoodaas waxay wax ka qaataan hadda Tanzania iyo Lamu oo ku taala Kenya ku taala Mombasa ku taala Kismaayo iyo Muqdisho iyo dhanba ugu jirta in Soomaaliya ay ku biirto dhinacaas laana dowladaha inta la eego 330 milyan ah waxay u baahan yihiin resource badan iyo dekada badan bay u baahan yihiin marka in Soomaaliya gashay fursad badan bay u tahay waxaan kaga xoroobaysaa caqabadaha ay ku hayaan Carabaha laakiin Soomaalida waxay jecel yihiin Carabaha dhinaca Islaamka eegayaan mislada marka in badan oo Soomaalida kamid ah aragtidooda waxa ka qasan islaamnimadii iyo dantii ku jirtay Afrikaanimada ahayd bay isku qasayaan oo halkee dan idin ambaysan kala aqoon ma kula tahay inay arintaas jirto way jirtaa dawladuhu waxay leeyihiin identity-yaduna maxaa la yiraahdaa qofku way identity badnaan karaa Soomaali Muslim Arab haddana Afrikaan intaba waa nahay sidee marka la iskugu balance gareyn karaa loo wada shaqeyn karaa waxa u baahan tahay aqliyad iyo falsafad iyo garasho dheeraad u baahan tahay iyo wacyi annaga marka Soomaaliya hadaanu nahay waxaan wax ka fiirinaa oo kaliya qofkan waa Arab asagun baan u hogaansanaanaynaa sidaas masaalixda adduunka iyo siyaasadaha iyo looma fiiriyo hadda waxa markii ururkan la galay koow waxa weeye dantu waa ganacsi iyo siyaasado iyo amni iyo dano waa masaalixdan waxay nagala dhaxaysaa dawladaha dariska nooca ayaga population ahaana nixiga dad ahaana nixiga qoomiyad ahaana ayaga nixiga haddii marka Soomaaliya anigoo kale la dhiilaa madax ka noqo boqolkiiba 80 xiriirkayga dhinacana u badin lahaa ayagan cilaaqaad ka siin lahaa safaaradaha waxaan ka furi lahaa iigu awood badan safiirooyinka ugu muhiimsan ugu khibrada dheerka dawladahan dariska aabaan u geyn lahaa oo aniga raadka igu leh influence igu leh marka waxaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed yani inay kala saaraan masaalixda iyo siyaasadda iyo jacaylka iyo walaaga iyo jacaylku waa wax masaalixda siyaasadda markay noqotana waa wax marka hadda u fiirisid Soomaaliya yay ganacsi la wadaagtaa Kenya marka hadda loo fiiriyo Qatar iyo Kenya noo dhow hadday noo noqoto xagga traveling iyo isku gudubka hadday noqoto ganacsiga dad ahaan waa dadku karaameynaayo oo arka inay isku mid yihiin ma aha dad ku nacab oo ku arko in ka hooseyso ma ku arkaan Kenya waxay ku artaa bal inaaba adigu ka weyn tahay oo ka qurux badan tahay oo ka fiican tahay ka wanaagsan tahay bay ku arkaan ka dhaqaale badan tahay adaaba ku sharfan qofka Soomaaliya markuu Kenya iyo Nairobi joogo asagaaba madax oo Landheera ah beenama markuu joogo meelahan kale uu cabdun ama uu iska yahay xabashiyun ama yahay way dhacdaa marka dawladahan wayna qiimeeyeen runtii wayna karaameen wayna soo dhaweeyeen markii qixii Soomaaliya uu ku dhacayna ayagaan u qaxnay Soomaalida ugu badan Kenya iyo Tanzania iyo Uganda wada degan yihiin marka kulli wada fiirsatidna aad bay Soomaalida u soo dhaweeyeen siiba Kenya iyo Uganda marka in wax lagu darsado oo lala ganacsado oo wax la wadaago oo ma aragtay iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid bulsho lagu darsado ayaga istiraatiijiyahan noo ron aad iyo aad ay mahadsan tahay barnaamijka oo aynu ku eegaynay arrimahaas iyo ku biiridda ururka Afrika ama ururka bulshada Afrikaanka intaas ayaynu ku eekaynaynaa barnaamijka waxaynu ku wareysanaynay Sheekh Maxamed Cabdi Shucayb wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis waxaana isla qabtay barnaamijka wacyi oo Somali TV iyo xarunta Bayaan Research Center oo sheekhu uu asagu madax u yahay inta marka la hawada aynu ku kulmayno waa anoo Maxamed Duliyadeena iyo saaxiibkay Mahad Kacali iyo Guuleed Daacad وإنك تيجي نسيت في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.